halkani waa qubanaha TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay siyaasadda Soomaalida qodobada daba doontaana waxa kamid ah war ka soo baxayo wararka sheegaya in uu geeriyooday afayeenkii kooxda Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere iyo sidoo kale warbaahinta dawladda oo sheegtay inuu dhaawacmay afayeenkaasi iyo Al-Shabaab war ka soo saartay geerida iyo sidoo kale dhaawaca lagu sheegay afayeenkooda xogihii ugu dambeeyay Cali Maxamuud Raage ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa qodobada kalena waxa kamid ah xoga sira oo laga helayo geerida Allah u naxariista taliyay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Sharciyo guutay Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole iyo hay'adda NISO oo shaaca ka qaaday arrin sira ayaan saaxiibayaal idin wadaagi doonaa qodobada kalena waxa kamid ah Caliyara Cali ninka ku magacaaban gudoomiyaha amniga gobolka Banaadir ee aan shaqeynin ayaa waxa uu weerar afka ku qaaday taliyaha hay'adda nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad xogii ugu dambeeyay sidoo kale siyaasiyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa hore xilal u soo qabtay ayaa sidoo kale aragtiyo kala duwan ka qaba geerida taliyay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo ku geeriyooday maanta dagaal ka dhacay deegaanka Basra ee u dhaxeeya Afgooye iyo sidoo kale Balcad qodobadaas iyo kuwa kale saaxiibayaal barnaamijka ku faaqidi doonaa balse aan ku bilaabno warbaahinta dawladda ayaa maanta shaaca ka qaaday in uu dhaawac soo gaaray afayeenkii kooxda Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo ay sheegeen inuu dhaawac ka soo gaaray dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay gobolka Hiiraan qaasatan dagaalkii ka dhacay deegaanka Ceel Qooxle ee gobolka Hiiraan oo uu ku geeriyooday nabadoonkii caanka ah nabadoon cilmi xagar guure warbaahinta dawladda qoraal ay ku daawacday barteeda waxay ku sheegtay inuu dhaawac halis ka soo gaaray dagaaladaasi afayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo maalmihii la soo dhaafaba ku sugnaa deegaanadaasi isagoo horkacayay dagaalada ay ku qaadayeen ciidamada macawisleyda iyo kuwa dawladda oo ay sheegeen in ay guulo ka gaareen balse dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay gobolka Hiiraan ayaa labada dhinacba waxay kala sheegteen in ay jab weyn midka kale uu gaarsiiyay balse wararkaasi kuwa ka duwan oo la helay ayaa sheegay in Al-Shabaab deegaanadii ugu badnaa ee gobolka Hiiraan laga qabsaday sidoo kalena degmooyinkii muhiimka ah iyo kuwii saldhigyada weyn ay ku lahaayeenba intooda laga farmaroojiyay warar kala duwan oo ka soo baxayaan waxay sheegayaan waliba warbaahinta madaxa banaana waxay daawacayeen maanta inuu geeriyooday afayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ee dhanka kale Al-Shabaab waxay war ka soo saartay geerida iyo sidoo kale tuhanka dhaawaca soo gaaray afayeenkoodu iyagoo sheegay in afayeenku nabad qabo sidoo kalena wax dhaawac uu soo gaarin walow wararkaasi warar ka duwan ama ka madax banaan oo arintaasi sidoo kalena laga heli karo aysan jirin balse dawladdu waxay sheegaysaa in ay kooxdani la damacsan tahay afayeenkooda in ay ku dabiibaan meelo muhiim ah oo ay sheegeen in ay ka mid yihiin deegaano ka kala tirsan maamul goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale ay sheegeen Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ay ku xoogan yihiin kooxdani dagaalkii maanta ka dhacay ayaa sidoo kale waxa ku geeriyooday askar la socotay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo sidoo kale wariyo warbaahinta dawladda ee wakiil wareed uga ahaa degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe markaan hadii aanu eegno tuh weyn ayaa ka soo baxaya geerida Allah u naxariista taliyay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo maanta ku geeriyooday dagaal ka dhacay Basra oo hoos tagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalkani waxa iska garabsanayay ciidamada Haramcad kuwa booliska iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab kuwa militariga qayb ay ka ahaayeen xilli la sheegayay in uu ku sugan yahay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha hay'adda nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad oo isagu howlgalkani hormuud u ahaa dhanka kale isla degmadaasi waxa ku sugan madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo isagu abaabulaya howlgal ka dhana oo deegaanada maamulkiisa waliba qayb ay ka socdaan qaybta gobolka Shabeellaha Dhexe uu doonayo in ay ka bilowdaan uu ka bilaabayo degmada Balcad Cali Guudlaabe waxa uu kulamo kala duwan la qaatay ciidanka ATMIS oo uu sheegay in la doonayo inay qayb ka noqdaan howlgallada deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe si looga farmaroojiyo in iyagu hormuud ay u noqdaan waxa uu magaalada Balcad kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka ATMIS oo uu ka dalbaday in ay si lixaad leh uga qayb qaataan howlgallada xilligan ka soconaya deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa isagoo ku sugan degmadaasi waxa uu sidoo kalena abaabul xoogan ka wadaa sidii deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe looga bilaabi lahaa howlgallo ka dhana kooxdani oo uu sheegay in deegaanadii ugu badnaa abid xilligan laga qabsanayo xilli iyagu qudhoodu ay beegsanayaan saraakiisha iyo sidoo kale hal dollar dadka Soomaaliyeed oo iyagu toddobaadkii la soo dhaafaba ay ku dileen dagaal ka dhacay deegaanka Ceel Qooxle ee gobolka Hiiraan sidoo kale nabadoon caan ka dhaxaa bulshada Soomaaliyeed qaasatan ay ka soo jeeday gobolkaasi oo lagu magacaabayay Cilmi Hagar Guure markaan ugu dambeyntii hadii aynu ku soo afmeerno
gudoomiyaha ninka ku magacaaban gudoomiyaha amniga siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa weerar ku qaaday taliyaha nabad sugidii sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo uu sheegay in isagu oo qayb ka ahaa maleega ee lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan oo maanta ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cali Yare iyo sidoo kale tiimka nabad iyo nolol ayaa qaba in taliyahaasi loo maleegay shirqool la doonayay in lagu dilo. Farxaan Qaroole ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka ah saraakiisha muhiimka u ah nabad iyo nolol ee sidoo kalena balse la jaan qaadayay nidaamka cusub ee ka curtay dowladda Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah oo naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Sariye Guuta Farxaan Maxamuud Aadan iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku shahiiday dagaalkii saaka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. madaxweynaha ayaa tilmaamay sida ciidamada geesiyaasha ee Soomaaliyeed ay uga go'an tahay in ay xoreeyaan dalka oo ay nolol karaamo leh ugu noolaadaan ee dadkoodu iyo sidoo kale in ay u shahiidaan iyagoo gudanaya waajibaadkaasi qaran. waxa uu sheegay in Sariye Guuta Farxaan Maxamuud Aadan Allah uu naxariistay uu go'aankaasi lahaa ee kuna shaqeeyay maanta uu shahiiday. war lagu daawacay barta madaxweynaha uu ku leeyahay Facebook ayaa lagu yiri Sariye Guuta Farxaan Maxamuud Aadan iyo askartii kale la shiiday waxa ay waqtigoodii iyo naftoodii u horeen sida ay nabad ugu noolaan lahaayeen shacabka Soomaaliyeed waxayna dadaal badan galiyeen sidii Soomaaliya looga sifayn lahaa kooxda argagixisada. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Sariye Guuta Farxaan Maxamuud Aadan iyo askartii kaleba ay ku shiiday uga bariyay Allo inuu jannatul firdawsa sidoo kalena qoyskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen sabr iimaan Allah ka siiyo. wararka kala socotay qubnaha TV-na xilligan wanaagsan.